sida ay baahiyeen warbaahinta caalamka qaarkood wadanka Sacuudiga waxa ku geeriyooday Sheikh Ali Hakim Sheikh Ali Al-Hakimi oo isagu ahaa qofkii ugu da'da weynaa ee dalka Sacuudiga waxaana uu toddobaadkan ku geeriyooday da'dii 147 sano Sheikh Ali ayaa u geeriyooday dhiig maskaxda uu kaga furmay sida warbaahintu ay tabanayso waxaana uu taariikh dheer ku leeyahay gudaha dalka Sacuudiga Al-Hakimi waxay dhaqaatiirta iyo xubnaha qoyskiisa kamid ay sheegeen inuu aad u jeclaa socodka lugta ahi halka ay dadka gaadiidku ka isticmaalaan isagu lugtiisa maal jiray waxay taas ku sheegeen inay tahay sababta uu caafimaadkiisa u hagaagsanaa muddo dheer lugtu ma u jeedido aad loo amaano waxa uu degnaa magaalo lagu magacaabo Abha oo magaalada Maka u jirta 600 kilomitir weligiina gaari uma raacin Maka iyo magaalooyin kale oo la mid ah ku yaala wadanka boqortooyada Saudi Arabia waxaana uu bedelkeeda u lugeyn jiray magaalooyinkaasi qoyska wadaadkan geeriyooday ayaa waxa ay tilmaameen inuu yahay qofka ugu da'da weynaa marka loo eego wadanka boqortooyada Saudi Arabia isla marhaantana taariikh fog uu ku lahaa dalkaasi Yahya Al-Hakimi oo qoyska Sheikh Ali kamida ayaa u sheegay Al-Arabiya in Sheikh Ali uu jeclaa cuntada beeraha ka soo go'da sida qudaarta cagaaran qamadiga galeyda digirta iyo malabka waxa uu ka fogaan jiray cuntooyinka warshadaysan waxaana uu sidoo kale cuni jiray hilibka xoolaha markaas la qalay markuu xajinay waxa uu xajka ku tagi jiray lugtiisa isagoo 600 kilomitir aan gaari u raaci jirin halkaas ay ku taalo magaalada Maka al-Mukarrama ee dalka boqortooyada Saudi Arabia